saacadihii u dambeeyay baraha ay bulshadu ku xiriiraan waxa si aad u qabsaday hadal haynta ciidamo ka tirsan kuwa booliiska Puntland gaar ahaan kuwa ku sugan degmada Qardho oo fal aad u naxdin badan kula kacay hablo Soomaaliyeed oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo Alxamdulillah oo ka tirsan gobolka Bari isla markaana u dhow degmada Qardho wararku waxay tilmaamayaan in ciidamada booliisku xalay ay tageen goob ay gabdhahan iyo sidoo kale wiilal ay ku damaashaadayeen isla markaana waqti ay ku qaadanayeen isla markaana ciidamadu ay burburiyeen dhammaan hantidii ay wateen dabadeetana fal aad u falxun oo halkaasi ka dhacay ciidamada qaarkood ayaa la sheegay in gabdhaha ay video ka duubeen dabadeetana ay galiyeen social media siba Facebook taas oo aad ay uga caroodeen bulshada qaybahooda kala duwan suxufiyiinta ugu magaca dheer baraha bulshada qaarkood iyo sidoo kale dadka aadka u isticmaala baraha bulshada ayaa dhacdadan aad uga xumaaday waxayna qaarkood sheegeen in dhacdadan ay tahay mid ka baxsan bini'aadantinimada iyo diinteena suuban ee islaamka goordhow shir jaraa'id degmada Qardho waxa ku qabtay taliyaha booliiska gobolka Karkaar iyo taliyaha booliiska degmada Qardho waxayna raali gelin ka bixiyeen falkan waxayna sheegeen in askarigii fiidiyowgan duubay dabadeetana baraha bulshada galiyay ay gacanta ku soo dhigi doonaan sharcigan ay horgeyn doonaan